Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Subax wanaagsan, sanad wanaagsan, kusoo dhawaada barnaamijka saaka ee dunida xiliyadan oo kale idinkaga maada TV-ga qaranka xarunta dhexe ee magaalada Muqdisho marka laga reebo maalinimada Jimcaha. Waa kooda bisha koowaad ee sanada 2020 subaxnimadan anigu Raxmiis Jimcaale ayaa u diyaara inay barnaamijka idin tabiso qodobada xiisaha leh aan idin soo gudbin doono waxa kamid ah wasaaradda maaliyadda xukuumadda federaalka ayaa waxa ay sheegtay in miisaaniyadda dawladda ee sanada 2020 ay xooga saareyso horumarinta adeega iyo difaaca qaranka. qodobada kale aan idin soo gudbin doonana waxa kamid ah maxkamadda darajada koobaad ee ciidamada qalabka sida Soomaaliya ayaa xukuno kala duwan waxa ay ku riday dhagarqabayaal ka tirsan kooxda argagixisada Al-Shabaab. qodobada kale aan idin soo gudbin doonana waxa kamid ah safiirka Soomaaliya ee dalka Turkiga iyo Jamhuuriyadda aynu walaalahay ee Djibouti ayaa Turkiga ku booqday dhaawacyadii ku waxyeeloobay qaraxii 20 bisha ay ka geysteen magaalada Muqdisho argagixisada Al-Shabaab dhaawacyadii ka soo gaaray oo lagu dabiibayo dalka Turkiga. qodobada ay qodobo kale oo xiiso leh hadba wixii nagu soo kordha xubnayni joogtada ahaa ayaan barnaamijkeedii kugu soo gudbin doonaa balse inta oo idil waxa ka horeeya warka kooban uu leeyahay Cali Cabdiraxmaan Aadan ayaa la diyaara saakay. waagaagadiyan sii gudgalna warka kooban barnaamijka saaka ee dunida madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya ayaa saxiixay miisaaniyadda dawladda sanadka 2020 ilaa 2021 madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa xalay saxiixay miisaaniyadda dawladda sanadka 2020 kadib markii ay ansixiyeen baarlamaanka federaalka Soomaaliya. madaxweynaha ayaa bogaadiyay xildhibaanada labada gole ee si wada jir u ansixiyay miisaaniyadda oo xil saaran leh taasi oo ay ka guteen waajibaadkooda dastuuriga ah ee kaga aadana waxa ay ku ansixiyeen cod aqlabiyad leh. madaxweyne Farmaajo ayaa dul istaagay kororka miisaaniyadda dawladda oo faray xukuumadda inay xooga saarto dardargelinta adeegyada bulshada, kobcinta fursadaha shaqo dhalinyarada la siinayo iyo xaqiijinta mushaarka shaqaalaha dawladda iyo ciidamada qalabka sida. Ra'iisul xukuumadda Soomaaliya oo Dhuusmareeb Galmudug ku sugan waxa uu la kulmay dhinacyada ay khusayso maamulkaasi Galmudug. Ra'iisul Xasan Cali Khayre oo magaalada Dhuusmareeb xarunta Galmudug ku sugnaa maalmahan ayaa kulamo la qaatay dhinacyada ku lugta la doorashada maamulkaasi. mudane Khayre ayaa waxa uu kula la qaatay hogaamiyaha Ahlus Sunna Macalin Maxamuud Sheekh Xasan waxa ay ka wada hadleen sidii loo fududeyn lahaa howlaha doorashooyinka Galmudug. sidoo kale ra'iisul wasaaraha waxa uu kula la qaatay waxgaradka Galmudug waxaana uu kala hadlay sidii ay u dadejin lahaayeen soo xulista baarlamaanka labaad ee maamulkaasi u yeelan doono. ugu dambeyntiina dawladda Mareykanka gaar ahaan wasaaradda gaashaandhigga ee Pentagon-ka ayaa sheegtay in ciidamo ku dhawaad ah ay u diri doonaan bariga dhexe. wasaaradda gaashaandhigga dawladda Mareykanka Pentagon ayaa sheegtay in ciidamadani dheeraadka ah loo diray dalka Ciraaq ka qayb qaadan doonaan difaaca safaaradda iyo qunsuliyadda Mareykanku ku leeyahay magaalada Baghdad sida uu sheegay xogayaha gaashaandhigga Mareykanka Mark Esper. boqolaal banaanbaxayaal reer Ciraaq ayaa weerar ku ekeeyay safaaradda Mareykanka magaalada Baghdad kuwaas oo ka careysan weerar axadii Mareykanku uu ka fuliyay qaybo kamid ah dalkaasi oo ku beegsaday maleeshiyada taageerta dawladda Iran oo Shiica. weerarka dhanka cirka ayaa lagu bartilmaamay xarumo kooxda lagu magacaabo Kataib Hezbollah ay ku leeyihiin gudaha dalkaasi Ciraaq oo 25 kamid ah xubnaha kooxdaasi ayaana lagu dilay waxaana weerarkaasi uu jawaab u ahaa weerar jimcihii lagu qaaday xarunta ciidamada Ameerikaanka ay ku leeyihiin gudaha dalkaasi Ciraaq. sidoo kale dilka qandaraasle shibil oo Ameerikaan oo lagu dilay gudaha dalkaasi. intaas ayaan ku ekeenayaa warkii koobnaa barnaamijka saaka dunida waxaan idin kugu celinaa barnaamijkii qaybihiisa kale.
cali cabdiraxmaan aadan wariyaheena ayuu ahaa oo istuudiyaha tooska ee wararka inooga akhrinayay warka kooban ee ugu horeeya barnaamijkeena saaka iyo dunida. subax wanaagsan ayaan mar kale idin leenahay. saakay waa maalinta koowaad ee sanadka. telefishinka qarankana waa barnaamijkii ugu horeeyay oo toos ah oo ka baxa sanada cusub ee 2020 aniga ayaan nasiib u yeeshay inaan idiin soo gudbiyo subaxnimadan. bal aan soo qabto qodobka ugu horeeya ee barnaamijkeena. wasaaradda maaliyadda xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa waxa ay sheegtay in miisaaniyadda sanadan 2020 ay xoog ku saareyso horumarinta adeegyada iyo difaaca qaranka. wasiirka maaliyadda dalka Dr. Cabdiraxmaan Ducaale Beele ayaa hadalkan waxa uu ka sheegay xilli uu wareysi siinayay TV-ga qaranka. waayo miisaaniyaddani waa la ansixiyay samaanta saad aragtaan. waxaan aad iyo aad ugu mahad celinayaa labada guddi ee ka soo shaqeeyay labada gole iyo labada guddoon ee labada gole iyo xildhibaanada sharafta leh si fiican bay u martay. haddaan ka yar sheekeeyo marxaladaay soo martay, marxalada adag bay soo martay 2 bilood. bishii October bishii tobnaad 30keedii baan soo gudbinay. 2 bilood ayaa la soo haystay, aan wada haysanay gidigayo. shaqo badan baa soo gashay. ugu dambeyntii markaa waa la isla gartay in maanta la ansixiyo. maanta maalintii ugu dambeysay weeye. marka really anigu aad iyo aad baan ugu mahad celinayaa. waxay ku kala duwan yihiin waxa weeye horta de miisaaniyadii hore way ka yar badan tahay, waxoogaa way ka badan tahay. badnidaasina waxaa tilmaamaya dakhligii oo kordhaya iyo caawimadii adduunka oo soo kordhaysa. inkastoo haddana markaad eegto wuxuuba ay wax isla wada yar yihiin oo ayna weli halkii waddan sideenan oo kale ah oo xajmigiisu intaa leegyahay oo dadkiisu intaa leegyahay miisaaniyaddii loogu talagalay aanay ahayn. haddana kolleyba waa koraysaa. now waxay ku kala duwan yihiin waxa weeye maanta labadii gole oo wada fadhiya, labadii guddi oo wada fadhiya ayaa isla falgalay oo annaguna aan la falgalnay. markaa wada hadallada iyo debate-ka laga galay waxa uu ahaa mid kii hore ka adagoo de laba group baa isku yimi, maarta laba guddi baa isku yimi. waxa kale oo jira de halkan markii la yimina maalintii ka horreysay baa halkan la iskugu yimi iyadoo labada golo wada fadhiyaan. ayaguna waxay sii badinaysaa de halkii 130 halkan laga doonayay 130 iyo 40 dhinacayna ka yimid. dadkii baa sii batay, fikradihii la haystay baa sii batay. sidaa daraaddeed way sii xoogaysatay budgetku, miisaaniyaddu way sii xoogaysatay. talooyinkii iyo tilmaamihii lana siinayna way sii bateen. markaa runtii aad iyo aad baan ugu faraxsanahay siday maanta u soo gabagabeeyeen. miisaaniyaddu de horta waxa weeye waa kharash iyo dakhli soo gala. dakhligu waxa uu qaybsan yahay ka inagu gudaha inaga soo gala iyo ka adduunka inooga yimaada. ka adduunka inooga yimaada wuxuu qaybsan yahay mid kab miisaaniyadeeda oo miisaaniyadda lagu soo daro iyo mid mashruucaysan oo mashruuca kharashka iyo muxuu iyo dakhligu ay wada socdaan. marka quwadda runtii waxay saaraysaa waxa weeye habka dawladnimada wixii kharashkii ku bixi lahaa, ciidamada wixii ku bixi lahaa oo aad ogtahay 720 milyan ay ku kordheen. 720 kaasoo noqonaya ciidamada intii loo kordhiyay noqonaysa 12 bilood ee nagu soo socda. waxa kale wuxuuna noqonayaan socodsiinta hawlaha dawladdu leedahay. weli maynaan gaarin meel aan nidhaahno wadooyin baan samaynaynaayo ciidan baan waxaan dhisaynaa muxuu iskuulaan dhisaynaa. taa lafteeda lacagaa ugu jiro oo kuwii hore ka badan. caafimaadka lacaga intii hore ka badan baa ugu jira. tacliimaha iyo culuumaha tii ka badan baa ugu jirta. laakiin haddana weli halkaan doonayna maynaan gaarin. xaggaasaan usii durkaynaa. deynta marka laynaga cafiya hadhow insha allah dib baan ugu soo noqon doonaa. markaasaan arki doonaa wax dhismo inay meesha soo galaan. wasiirka maaliyadda dalka ayuu ahaa Dr. Cabdiraxmaan Ducaale Beele oo wareysi siinayay TV-ga qaranka isla markaana ka waramayay miisaaniyadda dawladda ee sanada 2020 ay dawladdu xooga ku saareyso adeegyada horumarinta iyo difaaca. qaybihii hore ee barnaamijkeena saaka iyo dunida ayaa daawanaysaa. maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida ayaa xukuno kala duwan waxa ay ku riday dhagarqabayaal ka tirsan kooxda xag jirka ah ee Al-Shabaab. wariyahayaga maxkamadda qalabka sida Cabdulqaadir Ciise ayaa ka waramaya. waxa ay soo martay madaxa howlgalada magaalada soo martay gobolka. wax iyaga dhib badna ay wilwilbadaan jirin macnaha. nugeeda inaa ka wareysid shaqa dad u dirsatay wilwala kugu jira malaga soo dilay inaana socodid waada ku weer
marar qaro isaheen weyn xataa ana idin raaca leedahay oo wada waa idin fiirsana ilaa hubkii laga dhigo hooshii laga soo mana sariisid hooshii soo dhacday ragii madax guud oo soo wacay hooshii say u dhacday sheegtay haddana hebel galay yaa wax ku dhuftay hebel yaa ku xig intaas ma qaxbada dhacday intaas inta loo waxsan tafaasiil dheeraad ah laga qor kadib ninkaas wixii macquul galka in idaacadan dulis loo tooro 2 November sanadii 2016 ayaa iyagoo baxsad ah la qabtay kadib dil ay u geysteen nabadoon Hilowle Xeefow Xuseen laakiin xilligaasi waxa uu heliyay oo horjoogo u ahaa ilkaasi oo afgarashadiisu ahayd daahir fiidow iyo keero ayaa la mariyay ciqaabtii ay mudnaayeen ee toogasho 7 January 2019 Agosto 5 2019 ayaa la geeyay fagaaraha cadaaladda iskool Buluusiya kadib qaraxin bataanaha oo dadku waxyeeloobeen oo uu geystay isaga iyo Booro 22 December 2018 laakiin gaariga hore ee qarxay hayna baro canshuur ismiidaamiyihii iyo jihiyihiisa والله maanta kadib baysiba ilkaasna wuxuu soo watay yarkaad isku qarxin doono nanu an yarkan Cabdixakiin aan lagu soo daray 14 November sanadkan ayaa iyagana xukun laga soo saaray 4 eedeysana oo 3 kamid ah horjoogo u ahaa ilkaasi nin la dhahayo ilkaasi waagi hore la dhihi jiray daayir waxaan ila jiray ilkaas wajina ina isku horkeentid moogi waxaa laga yaabo maxaa la jiray anaga inta aan ka dhamaano baasna leen dubinta bariiska leeyahay ma hortkoodi inuu imaamo haddana aan la aqoonsanin ninka ilkaas wax oo ilkaas inuu yahay muujin kara ma jiraan waxaas dhan sheekayga ma ahan bal Maxamed Xaaji macalinka nagarta Iskambaro horta asalkii Xudayfa aan ku ah group fara badan oo aan la soo shaqeeyay markii la badbedelayna magacaadana askamada group walba loo soo bedel magac cusub waay عدابا لبحي ركعسان لبحي هاشم ومجلس afgarashadu yahay Carab Maxamed Xaaji ayuu la dilay adeerkiisa aabihiisa ay shaqo wadaag ahaayeen marxuumka sareeyo guuto booliis Ismaaciil Axmed Cusmaan Markeelo dilkaas oo ka dhacay degmada Waabari 28 Oktoobar 2016 wuxuu fadhiyay maqaayad ku taalo iskuuska Waabari iskuuska shaqaalaha wuxuu fadhiyay إن شاء الله نصدق معاه. هذن أيضا مركزنا سمنار كما هذا الشيء تليان من سركال وها. حافظ صوغ حافظ يعني كصدق قال مركز. تحسن الله. فاطمة كورنيلو magaceeda afgarashadu yahay cusub kagama faa'iideysan fursadeeda u adeegida dalka iyo kumaareynta nolosheeda la shaqeynta ururka haweenka iyo dawladda hoose laakiin shaqo kale oo ah dhiig daadin ay ku darsatay ورسوله أركتها إيه جلعنتها إسكندر أنا قرح مكون ديوانان يعني هو كان إيه قاضي إيه هاي مكون هاي دقمداس waxaan ka rabaa wixii ka dhacaayo in xilliga xilfada ay qabtiin xilliga madaxdeedii imaanayso xilliga ay degmada soo galayaan xilliga ay ka tagayaan sida badan in madaxa ay timaado in ay soo sheegtid oo maxaan ku ilaa asaas hoo shaqada ay la wadaan rabaan waxaas la soo sheeg bis in wax kale ay qaban Salim wuxuu nolosha u aqoonsaday ex marxuum Cabduqaadir Daahir Diiriye oo qayb ka ahaa dilkiisa January 2018 go'aanka heerka koowaad ee maxkamadda ciidamada kaliya kuma ekaan 4 xukun sano laakiin waxaa jira maqanayaal ay maxkamaddu go'aan ka gaartay kadib macluumaad dhameystiran oo garsoorayaasha heleen Sharmaake Umar Ahmed Xuseen oo magaciisa afgarashadu yihiin ugaaska iyo ganay wuxuu ka soo jeedaa Hiiraan Baradweyne isagoo qayb ka ahaa dilal dhowr ah oo la geystay Maxamed Xaaji sida dil ay u geysteen Allah u naxariistay ku xigeenkii xeer laaliyaha guud ee qaranka Maxamed Cabdiraxmaan Maxamuud Ahmed Faarax Iidle oo magaciisa afgarashadu yihiin Shuuri iyo Madoobe Nuuno wuxuu ka soo jeedaa Galgaduud Ceelbuur waxa lagu eedeeyay inuu qayb ka ahaa fulinta dil ay ka mid yihiin Allah u naxariistay ex sareeyo guuto booliis Maxamuud Xaaji Cali Cabdiraxmaan Mustafa Cabdullaahi oo magaciisa afgarashadu yahay Faarax Mooryaanka deegaan ahaan waxa uu ka soo jeedaa Shabeellada Hoose Walaweyn waxa ay wada dileen isaga iyo horjoogihiisa marxuum ex laba alif la booliis Maxamed Umar Sheekh Cusmaan oo ay ku dileen gudaha masjidka Bandhawo isaga oo dhageysanaya tafsiirka Quraanka 24 Febraayo 2017 Faarax Mooryaanka waxa uu isku yahay dilaa iyo abaabulida gawaarida qaraxyada loo adeegsado bal maxay uga dhigan tahay maleeshiyada dilka muslim ku jira guriga Alle ha inoo sharaxo horjooga ilkaasi marka
هذا نمك نن وحلقة أقبل مركو مسلم يا درسي أهل التوحيد وياه هذه قلب سيد وجلا وقلا نجاسة قشوا ولا قصاب بحنا أي قلا كبر هذا من ودي سنة يا أي أنت مسجد قلب حلقة ما الله ساسل متى بدأ الودي يعني وميل والبلوغ أركو يجيسا حلال حوليسا حلال مالكيسا حلال وحول بحلال واي حلال دهتيب ramadaan cabdiraxiin mursal magaciisa afgarashadu yahay saalax waxa uu ka soo jeedaa gobolka Gedobaar dheere waxa uu qayb ka ahaa dilka marxuumka ka sareeyo guuto xooga dalka Cabdullaahi Maxamed Sheekh Xasan Quruux ee wiil uu ilaalo u ahaa oo ka tirsanaa ciidanka xooga dalka Soomaaliyeed waxa ku heliyay dilkaasi horjoogihiisa Cabdinaasir Axmed Cabduqaadir Carabi waxa uu ka soo jeedaa gobolka Baybuur waxa uu ahaa ku-xigeenka Saalim isagoo qaadi jira haweenka qariyo hubka ay wax ku dilaan eedeysanayaasha maxkamadda xukuntay waa kan gaashaalan sare Xasan Cali Nuur Shoote gudoomiyaha maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida oo uu akhriyo warfidiyaanada xukunka ay ka soo saareen 8 eedeysanay iyo horjoogahooda ilkaase sidaa darteed maxkamadda waxaa u cadaatay in 9 eedeysane ay wada yihiin dambiilayaal gale dambiyada lagu soo kala oogay waxayna maxkamaddu ku kala xukuntay 1 dambiila shabaab maxamed xaaji axmed oo afgarashadiisu tahay ilkaase 2 dambiila shabaab saalim siciid maxamed oo afgarashadiisu tahay salmaan 3 dambiila shabaab axmed maxamed haashim oo afgarashadiisu tahay carab oo dhammaantood goobjoog ka ahaa dhageysiga garmaqalka waxay maxkamaddu ku xukuntay dil toogasho ah 4 dambiila shabaab sharmaaka cumar axmed xuseen oo afgarashadiisu tahay ugaaska iyo ganay 5 dambiila shabaab axmed faarax iidle oo afgarashadiisu ay tahay shuuriye iyo madoobe 6 dambiila shabaab cabdiraxmaan mustafa cabdullaahi oo afgarashadiisu ay tahay faarax mooryaanka 7 dambiila shabaab ramadaan cabdiraxiin mursal oo afgarashadiisu tahay saalax oo maqanayaal ah waxay maxkamaddu ku xukuntay ayagoo maqanayaal ah dil toogasho ah 8 dambiila shabaab cabdinaasir axmed cabduqaadir oo afgarashadiisu tahay carabey oo maqana ah waxay maxkamaddu ku xukuntay xabsi daa'in 9 dambiila shabaab faadumo xuseen cali cadaawe oo magaceedu afgarashadu yihiin faadumo korneel iyo cosabo oo goobjoog ah waxay maxkamaddu ku xukuntay 15 sano oo xabsi ciidan ah cidii aan ku qanacsanayn xukunka maxkamadda waxa u furan raacfaan wabillahi tawfiiq Cabduqaadir Ciise warbaahinta qaranka magaalada Muqdisho wariyaheenna Cabdulqaadir Ciise Cali ayuu ahaa oo ka waramayay maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida oo xukunno kala duwan ku riday qaar kamida argagixisada al-shabaab barnaamijka saakii dunida ayaa daawanaysaan safiirka Turkiga Soomaaliya u fadhiya iyo safiirka Jamhuuriyadda Djibouti Turkiga u fadhiya ayaa isbitaalada ku booqday dadkii ku waxyeeloobay qarxii argagixisadu dhawaan ka geysteen magaalada Muqdisho isla markaana xaaladooda caafimaad lagu dabiibayo magaalada Ankara ee dalka Turkiga wariyaheena Axmed Cabdulqaadir Ismaaciil Axmed Darwiish ayaa warkan soo diray safiirka Soomaaliya u fadhiya dalka Turkiga Jaamac Abdullaahi Caydiid oo uu weheliyay safiirka dalka Djibouti ee Turkiga Adam Abdullaahi ayaa kormeer ku tagay isbitaalada kala duwan ee lagula tacaalayo dhaawacyadii waxyeeladu ay ka soo gaadhay qaraxii Ex-Control Afgooye ee magaalada Muqdisho Tanjira Jaamac ayaa warbixino ka dhageystay dhakhaatiirta caafimaadka ee isbitaalada uu booqday wuxuu sidoo kale xog wareystay qaar ka mid ah dadkii la socday dhaawacyada dadka Soomaaliyeed ee la keenay dalka Turkiga wuxuu kormeerka kadib warbaahinta kula hadlay gudaha safaaradda Soomaaliya ee magaalada Ankara marka hore anoo ka faa'iideysanaya fursadan waxaan u tacsiyanayaa dhammaan intii ku geeriyootay eheladoodii iyo qaraabadoodii iyo asxaabtoodii hadday ahaayeen waayeel shacab arday iyo bulshadii kale meesha ku dhimatay gacan ka gardaran baa dishay insha Allah ilaahay waxaan uga baryaynaa inuu jannadiisa ka waraabiyo waxaan kaloo halkan u tacsiyanayaa labadii marxuum ee iyaguna Turkiga ahaa walaalaheen ee iyaguna meesha ku dhintay 24 saac kadib shalay galab ama xalay waxaan aniga iyo safiirka dalkan walaalahan nahay Djibouti u fadhiya Ankara mudane Adam Abdullaahi
waxaan isu raacnay kormeer dhaawacyadii la keenay Ankara. Waxaan rabnaa markaa kormeerkii wixii ka soo baxay xalay intii aanu ka soo ogaanay inaan bulshada la wadaago. 4 dhakhtar ama 4 hospitaal baa loo qaybiyay dadkii Ankara la keenay. Sidaad la socoteen 16 qof bay ahaayeen. isla saacada kadib markii dhaawac la keenay gabadh baa dhimatay ardayd ahayd jaamacadda Banaadir dhiganaysay kulliyadda caafimaadka waliba semesterkii u dambeeyay marasay. gabadha Aamina Cismaan Khayre oo ay hooyadeed waday la socotay hooyadeed oo la yiraahdo Shamsa Xasan Abtidoon. ilaahay u naxariista gabadha. xalay hooyadeed waxaa la soo hadlay wasiirka caafimaadka u tacsiyeeyay. madaxweynuhu dhowr jeer buu dawladdiisa xukuumaddiisa weydiiyay xaalka ay ku sugan tahay Shamsa Xasan oo hooyadeed ah. marka dareen gaar ah runtii ku haysay arintaasi madaxweynaha dalka Turkiga mudane Recep Tayyip Erdogan. 4 qaybood ee loo qaybiyay dadka 4 dhakhtar waxaa ku jira 2 qof oo dumar ah. dhakhtarna waxaa ku jira 3 qof oo 2 rag yihiin midna dumar tahay. dhakhtarka ugu badan oo dhakhtarka Shahiir Hastanis la yiraahdo ama City Hospital oo dhakhtarka ugu weyn dalka Turkiga ah dhakhtar cusub ah oo Ankara ku yaala waxaa ku jira 8 qof. dhakhtarka kale oo Ankara Research and Education waxaa ku jira 2 qof. dadka la keenay waxay 9 dumar ah iyo 7 rag bay ahaayeen. marka gabadh baa dhimatay waxay noqonayaan 8 dumar ah iyo 7 rag ah. waxa caruur ah 4 ayaa caruur ah oo u dhaxeeya 2 jir ilaa 14 jir u dhaxeeya. waa 3 hablood iyo 1 wiil oo isagoo 14 jir ah. dadka guud ahaan waxaa normal ah ama xaalad caadi ah ku sugan 5 qof waa dadka nool ee 15 ah. 10 qofna waxay ku jiraan ICU bay ku jiraan ama xaaladda canaayada si gaarka loo ilaalinayo ayay ku jiraan. taas macnaheedu waxa weeye dadka badankoodu oo 10 qof ah waxay ku jiraan xaalad culus oo adag. guud ahaan dawladda Turkigu waxay sidii kal horeba 14 Oktoobar si la mid ah ayay ugu diyaar garowday. aad iyo aad ba xaaladooda loola tacaalayaa. xil aad u weyn baa la iska saaray. xaaladooda waxaa la socday ilaa madaxweynaha wasiirka caafimaadka howlwadeenada wasaaradda caafimaadka intuba si hoose ayay ula socdaan. ardaydu ilaa maalintii dhaawaca la keenay heegan bay ahaayeen iyaga isu bedbedelayay turjumaanka ama inay afka khaatiirta af Soomaali ugu rogaan bukaanku wuxuu ka cabanayo. ardayda aad baan uga mahadcelinaynaa sida ay ugu soo gurmadeen walaalahooda dhaawaca ah. waxaan si gaar ah ugu mahadcelinayaa ganacsatada Ankara guddiga ganacsatada Ankara iyo guddiga ganacsatada Istanbul oo iyaguna qayb lixaad la ka qaatay dhaqaale ururintii lagu soo gadayay agabka dhaxanta dadka dhaawaca iyo dadka wadaba loogu geeyay diyaaradda. baahi badan baa jirta oo dadkani dhaqaale lama iman wali waxbay u baahan yihiin. marka jaaliyadda Ankara waxaan rajaynayaa Istanbul ba ama jaaliyadda guud ee Turkiga inay isxilqaamaan guddiyo samaystaan sidii sanadkii horeba ay yeeleen. baahida iyagu daraaseeyaan safaaradda la soo xiriiraan howlwadeenada ku mashquulsan safaaradda guddi baan u sameynay. guddigaas habeen iyo maalin u taagan inay la soo xiriiraan oo la mideeyo shaqada iyo waxtarkaba in la mideeyaan codsanana si waxaynu wax u taraan inaynu awoodeena dhaqaale iyo awoodeena shaqaba iyo awoodeena waqtiba inaan isu geyno haddaynu nahay ardayda jaaliyadda iyo safaaradaba. waxaan codsanaynaa in dadkaas xilkooda maanta wayna saaran yahay innaga laga qayb qaato. axmed cabdiqaadir ismaaciil axmed darwiish magaalada Ankara. waryaheena Axmed Cabdulqaadir Darwiish ayuu ahaa oo ka waramayay safiirka Soomaaliya ee Turkiga iyo safiirka dawladda aynu walaalahanahay ee Djibouti ee Turkiga oo isbitaalada ku booqday dadkii ku waxyeeloobay qaraxa ka dhacay magaalada Muqdisho isla markaana xaaladooda caafimaad lagu dabiibay magaalada Ankara ee dalka Turkiga.
welina warkaasi turkiga ayaan ku jirnaaye marxuum aamine cusmaan kheyre oo kamid ah dadkii ku dhaawacmay qaraxii kooxda nabadiidka al-shabaab ay dhowaan ka geysteen ex control afgooye islamarkaana dhaawac kasoo gaaray dartii loo qaaday dalka turkiga si loogu daaweeyo ayaa geeriyootay waxaana aaskeeda ka qayb galay mas-uuliyiin ka tirsan dowladda turkiga iyo Soomaaliya. warbixintan waxaa mar kale noo soo diray wariyaheena Axmed Cabdulqaadir Ismaaciil Axmed Darwiish. Allah u naxariistay waxaa maanta magaalada Ankara ee caasimadda dalka Turkiga lagu aasay Aamine Cismaan Kheyre oo ka mid ahayd dadkii dhaawac ahaa ee waxyeeladu ka soo gaadhay qaraxii ex control afgooye oo dowladda Turkiga ay ka soo qaaday magaalada Muqdisho isla markaana ku geeriyootay gudaha magaalada Ankara. wasiirka caafimaadka ee dalka Turkiga Dr. Fakhruddin Kocan, safiirka Soomaaliya ee Turkiga Jaamac Abdullaahi Caydiid, safiirka dalka Jabuuti ee Turkiga Aadam Cabdullaahi, mas-uuliyiin iyo qaybaha kala duwan ee bulshada ayaa ka qayb galay aaska marxuumad Aamine Cismaan Kheyre. wasiirka caafimaadka ee dalka Turkiga ayaa tacsiir u diray ehelada Aamine Cismaan Kheyre. wuxuu sidoo kale kulan gaar ah la yeeshay Shamsa Xasan Abtidoon oo ah hooyada dhashay Aamine Cismaan Kheyre. Somali kardeşimiz Amine Osman Khayr. waxaan maanta u taagannahay ka qaybgalka tacsida gabadheena Soomaaliyeed ee Aamina Osman Kheyre oo ka mid ah dadkii dhaawaca loo keenay wadanka. kalkaaliyaasha caafimaadka waxay ku dadaaleen inay gabadhaasi badbaadiyaan laakiin Ilaahay baa naga jeclaaday. Aamina run ahaantii waxay ahayd gabar qiimo leh, gabar ardayad ah galaaska ugu dambeeyay caafimaadka. maanta haddii noolaan lahaydna sanadka soo socotay qalin jibiso ummadeeda Soomaaliyeed shacbiga Soomaaliyeed u adeegi lahayd laakiin Ilaahay baa naga jeclaaday. dhaawaca Turkiga loo soo qaaday daaweyntiisa waa socotaa. insha Allah waxaan la soconaynaa dhaawacyada xamar jooga xaaladooda iyo kuwa Turkiga aan soo qaadnay. sidoo kale waxaan u tacsiinay Aamina hooyadeed oo ayadana ka mid ahayd dadkii soo raacay dadka bukaanada ahaa. waxaan uga tacsiinay dhimashada gabadheeda. waxay noo sheegtay in gabadheeda kale ay ayaduna ay argagax iyo naxdin ay ka qaaday walaasheed geerideeda ay baska ka dhacday oo gaari ka dhacday gaarigii uu jiiray oo isbitaal khaas ah ay joogto oo lagu daweynayo lacag ah. isla markii odaygana uu xanuunsan yahay oo uu dhiikar qabo jilbahana laga hayo uu isdaaweyn waayay. isla markii waxaan la xiriirnay isbitaalka Digfeer ama Rajab Tayyip Erdogan ee ku yaala Xamar. waxaana amarnay in gabadha isbitaalka khaaska ah laga soo saaro oo Digfeer Rajab Tayyip Erdogan lagu daaweeyo. aabahana sidoo kale dhiikarka qabay jilbaha xanuun amaliyad loo sameeyo. waxaana sidoo kale go'aansanay gabadha Xamar joogta aan ka shaqaaleysino isbitaalkeena Rajab Tayyip Erdogan ee Xamar ku yaala. haddii gabadha waxbarashada sii wadanaysa shaqayn karna hooyada aan shaqo ka siino si kaalintii ay baneysay Allah u naxariista Aamino aan ugu buuxino qoyskaas. markii uu soo dhamaaday aaska Allah u naxariistay Aamine Cismaan Kheyre waxaa halkaasi ugu duceeyay hooyada dhashay oo ku sawirtay qadarta dhacday. sidoo kalena waxaa ka hadlay safiirka Soomaaliya ee dalka Turkiga Jaamac Abdullaahi Caydiid oo dowladda Turkiga ugu mahad celiyay sida ay u garab istaagtay dadka Soomaaliyeed. waxaan u mahad celinayaa Ilaahayga abuurtay ee adduunka dushiisa igu soo nooleeyay. marka labaad waxaan u mahad celinayaa dowladda Turkiga ee dadaalka badan noo muujiday ayaan u mahad celinayaa. alxamdulillaah rabbil caalamiin. aniga Aamine Cismaan Kheyre Ilaahay baa siiyay, Ilaahay baan iga jeclaaday. qabrigeeda insha Allah mawlana Ilaahay waxaan uga baryayaa inuu uga dhigo qabri nuuraaya. Ilaahayga boqorka ee adduunka dushiisa keensaday ee oofsaday jinnooyinkiisa jinnada uu jecel yahay igu casuum. anigana samar iyo iibaan Allah iga siiyo. maanta waxaanu aasnay Allah u naxariisto Aamine Cismaan Kheyre oo ahayd ardayda jaamacadda Banaadir dhigata oo semesterkii ugu dambeysay ku jirtay. waxay ka mid ahayd 16 qof ee dhaawac ahaa ee loo soo qaaday magaalada Ankara dalka Turkiga. waxaan uga tacsiyeynaynaa Aamine iyo intii kale ku dhimatay qaraxa Xamar iyo intii ka horeysay iyo intii ka dambeysayba. dadka heladooda iyo qaraabadooda iyo asxaabtooda ayaan uga tacsiyeynaynaa. intii dhimatayna Ilaahay waxaan u weydiinaynaa naxariis iyo dambi dhaaf. waxaan intaa kadib ugu mahad celinayaa dowladda Turkiga doorkii ama kaalintii ay ka qaadatay
gurmadkii lagu gurmanayay dhaawacyadii ka soo gaadhay qaraxa iyo kuwii horeba 14 Oktoobar iyo kuwii ka soo horeeyay daadadkii beledweyne ka dhacay doorkay ka qaateen ama kaalintay ka qaateen hiilka iyo hooga ay maalin walba nala dhinac taagan yihiin nala gabar taagan yihiin waa uga mahad celinaynaa mar walba. axmed cabdiqaadir ismaaciil axmed darwiish magaalada Ankara. wariyaheena uu mahadsan yahay wuxuu ahaa axmed cabdiqaadir darwiish oo ka waramay mas-uuliyiin ka tirsan dowladda Soomaaliya Djibouti iyo Turkiga oo ka qayb galay aas loo sameeyay Aamino Cusmaan Khayre oo kamid ah dadkii ku dhaawacmay qaraxii 20 December ka dhacay ex-control Afgooye isla markaana dhaawaceeda loogu qaaday dalka Turkiga si loo dabiibo kadibna geeriyootay oo lagu aasay magaalada Ankara ee dalka Turkiga. qaybihii ugu dambeeyay barnaamijkeena ayaan soo gaarnay kooxda cadeysatay daadinta dhiiga shacabka Soomaaliyeed ayaa waxa ay ku faantay qaraxii ay ku waxyeeloobeen dad badan oo Soomaaliyeed oo aan waxba galabsan oo 18 December ka dhacay isgoyska ex-control Afgooye ee magaalada caasimadda ah ee Muqdisho. wariyaheena Cabdirasaaq Maxamed Faarax Shiine ayaa warbixintan inoo diyaariyay. xasuuqa ku dhawaad 100 qof iyo dhaawaca in ka badan 150 muwaadiniin Soomaaliyeed ayay dhiigooda aroor hore u daadiyeen si xaq iyo diintoona ahayn maleeshiyada arxanka daran ee Al-Shabaab. waxa ay foolka ku dhaqdeen dhiigga muslimiin maati ah oo u kala hayaamayay goobahooda waxbarashada ama shaqooyinkooda. waxa ay ahayd meel u dhow busteejo baabuurta laga raaco oo ah aaga ex-control Afgooye. dhiigga la qubay ee masaakiinta buugaagta jaamacadda oo muuqaalkoodu uu qariyay xinjirta dhiigga muslimiinta iyo hilbaha caruur saqiir ah oo bilajir ah hooyooyin dhabarka ugu xamaalayay ubadkooda aabayaal dhididkooda ugu shaqaynayay qoysaska nugul iyo ardaydii noqon lahayd mustaqbalka dalkan ayaan ku weynay dilka dulmiga xambaarsanaa ee argagixisada Al-Shabaab ay fuliyeen. caado iyo dhaqan ayay u tahay alla ka been abuurashadiisa qaloocinta aayadaha Qur'aanka Kariimka ah ee eebe iyo ku digashada axaadiista nabigeena calayhi salaatu wasalaam. waxaana intaa dheer qiraalka cad ee ummadan careysan oo la soo hor istaagay foolku dhiig la cali dheere. maalintii sabtidii ay taariikhdu ku beegneeday 2 Jamaadul Awwal 1441 hijriga mujaahidiintu waxay weerar ka fuliyeen halka loo yaqaano ex-control Afgooye ee magaalada Muqdisho. halkaas waxay mujaahidiintu weerarka kula beegsadeen koleeyo cadow ah. weerarka ayaa khasaare naf iyo maalba isugu jira gaarsiiyay. cali dheere waxa uu yiri qadarta alle ayay ku dhacday in gaadiidka dadkaasi muslimiinta ah ay saarnaayeen uu ku xayirmo goobta ayna ku dhintaan kulligood. qiil ma noqon kartaa waan ka xumahay boqolaal dhiig muslimiin ah ayaan daadiyay si xaq darro ah. diinta alle waa diin naxariis waxa ayna u taagan tahay badbaadinta nafta muslimiinta. hadallada cali dheere waxaa ka muuqda aqoon dari diimeed xishood la'aan alla ka fogaasho dheeri ah iyo banaysiga dhiigga maatida muslimiinta ah ee Soomaaliyeed. waxa uu yiri foolku dhiig la cali dheere waa ay bannaan tahay in gaalada lagula diriro haddii ay ku dhex jiraan muslimiinta xitaa haddii ay ka tiro badan yihiin oo la og yahay in ay ku dhimanayaan kulligood. waa taas taliisha cad ee banaysiga foolku dhiig la cali dheere ee uu ku cadaynayo in Al-Shabaab aysan aqoonsaneen ku dhaqanka diinta Islaamka kana been sheegayaan. alla ayaa quraankiisa ku sheegay in qof muslim ah dhiigiisa la daadsho ay uga fududahay dunidan weyn oo la rogo. laakiin cali foolku dhiigle waxa uu banaystay in si macno la'aan ah loo qobo dhiigga muslimiinta ah ee alla uu xaaraantinimeeyay. dowladda iyo shacabka muslimiinta ah ee Turkiga oo horumarinta u ifinta dalkan baal dahab ah ku leh ayay ka dhigeen duulaan shisheeye oo ku soo duulay dalkan. laakiin waxa ay la micno tahay in Al-Shabaab ay bari ka yihiin taaka walba oo Soomaaliya lagu horumarinayo. Sheekh Nuur Baaruud Gurxan ayaa ku taliyay in la iska dhiciyo oo la dilo maleeshiyada qawaarijta ah ee Al-Shabaab. Nabi Muhammad alayhi salatu wasalaam man qatalahum كان أولى بالله منه. قفكي لدغ على من منك أولا يا إلهي أغدو
axaadiis badan oo nebiga wuxuu sheegay inay yihiin horta in la layn karo faidaa laqiitumuuhum faqtuluuhum buu yidhi laaya haddii kale mogta ummadayba dabar goyne laaya sheekh maxamuud sheekh cali dheere agaasimaha waaxda diinta ee wasaaradda awqaafta iyo arrimaha diinta iyo sheekh cabdulaahi axmed guruun ayaa fasiraad sax ah ka bixiyey hadalkii ka soo yeeray horjooga cali dheere hubka lagu dagaalamayo oo qof lagu baacsanayo qof lagula dagaalamayo ama shaksi lagula dagaalamayo hub xadidan oo qofta aan dhaafi karin waa inuu ahaado hadduu ka gudbo meeshaas waa xaaraam waana hadaf la-aan waana jahli oo jaahiltinima nabigu wuxuu leeyahay qofka mu'minka wuxuu ku sugnaanayaa fi fusxatin min diini ma lam yusib daman harama haduu dhiig gardarro ku daadiyo waxa way ciriiri buu adduun iyo aakhira galaya nabigu uu dhaartay hadana uu dhaartay wuxuu yiri walladii nafsi biyadihi la yatiyana ala naasi zamanun la yatri al-qatilu fi ay shay'in qatala wa la yatri al-maqtulu fi ay shay'in qatala waxaad moodaa xadiiskaas inuu tilmaamayo dhacdadii ka dhacday ex control iyo kuwa lamid ah oo kale sheekh cabdiqani qorane maxamed oo isna ka hadlayay weerarkii bahalnimada ahaa ee al-shabaab ay ku laayeen dadka muslimiinta ah ee Soomaaliyeed ayaa waxa uu ka hadlay sida al-shabaab ay u baalmareen diinta islaamka runtii waxay ahayd musiibo aad iyo aad u weyn waxaana uu ahaa xasuuq arxan darro ah oo aad u xanuun badan oo xambaarsan ayna ka muuqato cadowtinimo iyo arxan darro ana ka suurtoobin qof diin iyo damiir leh sidoo kale waxa uu yiri sheekh cabdiqani qorane ganacsatada Soomaaliyeed iska diida oo joojiya dhaqaalaha aad ku taageereysaan al-shabaab laguna gumaadayo shacabka Soomaaliyeed ee abrida ah haddaba waxaan leenahay ganacsatada xoolihii la bixinayay oo sida xaq darrada la idinka qaadayay haddii aynan idinku ku badbaadaynin ehelkiina aanu ku badbaadaynin maalkiina aanu ku badbaadaynin dadkii magaalada deganaa oo maxaa la yiraahdaa camirayay aysan ku badbaadaynin in si kale loo fikiro miyaysan ka habboonayn in lacagta lagu shubo meel uu halaa ka imaanayo miyaysan habboonayn in la xoojiyo dawladda si ay ugu tabaraysato iska dhicinta iyo iska caabinta iyo ka hortagga iyo soo afjaridda ee nimankan caadaystay ummadda baabi'inteeda dilka aan kala go'a lahayn ee caamada iyo culimada ay kula kacayaan kooxda yar ee diimlaawayaasha ah waxa ay tusaale cad ay u tahay in aysan jirin sabab loo aamuso ama indhaha looga qarsado sida ay ku taliyeen culimada waaweyn ee dalka waxaana waajib ah in shacabka Soomaaliyeed ay u midoobaan la dagaalanka maleeshiyada arxanka daran ee al-shabaab cabdisaaq maxamed faarax shiine ayuu ahaa oo ka waramayay kooxda argagixisada al-shabaab oo ku faantay weerarkii ay ku halaageen dad shacab ah oo aan waxba galabsan 28kii bishii la soo dhaafay ka dhacay ex control afgooye ee magaalada muqdisho qodobka ugu dambeeya ee warbixinadeena aan soo qabto wasaaradda kalluumeysiga iyo kheyraadka badda xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa waxay ka warbixisay kalluun shalay ku soo caariyay xeebaha magaalada muqdisho agaasimaha guud ee wasaaradda kalluumeysiga iyo kheyraadka badda federaalka maxamuud sheekh cabdulaahi ayaa waxa uu la hadlay TV-ga qaranka wuxuuna ka warbixiyay waxyaabaha sababay inuu kalluunkaasi ku soo caariyo xeebaha maanta ayaa waxaa jiray in qaybo ka mid ah xeebta xalaane uu kalluunka loo yaqaano nooca aydiga ah ee yaryar uu ku soo caariyay badda kalluunka isaga ah dabcan waa nooca ay Soomaalidu inta badan u isticmaasho inay kalluunka kale ku jilaabtaan sidiisana waxa weeyaan kalluun fara badan oo israaca oo sida qaar ka mid ah agaasimayaasha waaxuhu ay sheegeen isagoo raxan u socda guura waxa aad u cuna oo daaqa kalluunka kale ee waaweyn ama yaxaaska iyo yumbiga iyo kalluunkaas kale ayaa ku nool oo aad u cuna kalluun marka xaddigiisu ilaa xad yahay ayaa soo galay oo xeebta ku soo caariyay xalane waan tagnay halkaas si aan ogaano sababaha kala duwan arintaa keentay sidoo kale waxaan ku soo sameynay sahan la xiriira in meesha uu ku soo caariyay ay
ay jiraan meelo kale oo uu kalluunka kusoo caariyey. waraysiyo kala duwan iyo warbixino kala duwan oo aan ka helnay meelo kala duwan waxay noo sheegeen inaysan arkin kalluun soo caariyey. hase ahaatee markii aan tagnay xeebta xalane waxaan soo aragnay kalluunka yaryarka ee caydiga ee noocaasa oo kusoo caariyey badda ilaa 100 tilaabo ku dhawaad meel ah. sababta keentay arinta iyada ah oo ay wasaaraddu rabto inay jawaab ka bixiso waxaa ixtimaal ah oo suuragal ah waxyaabaha soo socda. kalluunkan oo sida hore loo sheegay ah nooc raxan u socda oo israaca islamarkaana baddeena aada uga buuxa xeebahana ku dhow mararka qaar ayaa waxaa suuragala inuu cuno waxyaabaha loo yaqaano xayaabada oo ah xayaabada oo ku maran geedaha iyo jabalada markaasna ay noqoto wax uu ku jirhado sidaa daraaddeedna ay sababto inuu kalluunka dhinto. sidoo kale tirada xajmigiisa uu isu raaco oo aada u fara badan waxaa laga yaabaa inuu kalluunku isbuurto. marka uu isbuurto kadibna qaybaha gudaha ku jira ay waayaan oxygentii ay u baahnaan iyo hawadii saas daraaddeedna xaddi ka badan oo isaga ka mid uu hawo waayo isla markaana sidaa uu dhinto. goobta aan tagnay waxa weeyaan bacaad xeebeed baa ka sokeeya gadaal dambana waxaa jira jabalo aada u fara badan. marka waxaa suuragal ah iyada naftirkeeda maadaama goobta aan ku aragnay oo kalluunka kusoo caariyay ee ku dhintay ay qaybtaa keliya tahay xalane waxaa suuragal ah iyadana oo dhici karta in mawjadaha baddu ay hal mar soo tuureen qaybo ka mid ah saa daraaddeedna qaybtaas ay bannaanka u soo baxday. waxaa kaloo jiri kara tusaale ahaan kalluunka soo baxay waa noocan oo keliya waa nooca afka qalaad sadineelaha lagu yiraahdo soomaaliduna ay u taqaano caydiga oo ay maqaalinta geliyaan huuga ay geliyaan si ay kalluunka kale ugu dabaan. marka waxaa suuragal ah sababaha keeni karta aada looma garanayo laakiin maha guud ee wasaaradda kalluumeysiga iyo qaraadka badda ayuu ahaa mudane maxamuud sheekh cabdulaahi oo ka hadlayay kalluun kusoo caariyay xeebaha magaalada muqdisho isagoo sheegay inay baaritaan ku sameynayaan kadibna ay dib kasoo gudbin doonaan waxyaabihii sababay in kalluunkaasi uu soo caariyo. qaybihii ugu dambeeyay ayaan soo gaarnay manka dhankii xubnaha ayaan aadi doonaa aan soo qabto xubinta ugu horeysa xubinta akhbaaraadka dibadda ee wararkii ugu dambeeyay caalamka al-ustaad cabdiraxmaan yacquub ayaa soo koobaya. wararkii ugu dambeeya ka dhaca dunida daafeeda qodobada ugu dooran dinhaya saako ay tahay subax arbacad 1 janaayo 2020 waxaa ka mid ah jaamacadda carabta oo ka digtay inaan faragelin lagu sameyn arrimaha dalka Liibiya. ururka jaamacadda carabta ayaa ugu baaqay in la sameeyo dadaalo looga hortagayo in faragelin dabadda lagu sameeyo arrimaha dalka Liibiya iyadoo ay jirto heshiisyo dhinacyada militariga ahi uu la galay wadankaasi Liibiya. dalka Turkiga oo dowladda Turkiga ay u ballan qaaday inay taageero u fidinayso dowladdu ay aqoonsan tahay jamciyadda qolamaha ka dhaxaysa ee loo yaqaan GNA. xubnaha joogtada ama wakiilada ee ururka jaamacadda carabta oo kulan uga socday xarunta ururkaasi jaamacadda uu ku leeyahay wadanka Masar martigelisay kulanka ururkaasi inuu ka dhaco magaalada Qaahira ee dalka Masar ayaa waxa uu xubnaha ururkaasi soo jeediyay in aan lagu sameyn faragelin dabadeed arrimaha ka jira dalka Liibiya si uu yiri ururka aanay u soo faragelin qolyaha argagixisada ah ee ka faa'iideysta dalalka aan dowladaha adag aanay ka jirin ee dunida. waxaa kale oo ururkaasi walaac uu ka muujiyay xaaladda uu ku jiro dalka Liibiya ee ah xasilooni la'aanta iyo dagaalo kale oo uu qorsheynayay jaranka inuu ku qabsado xarunta dalka Liibiya ee Tripoli. waxaana Generaal Khalifa Haftar uu taageero ka helaa xulafada ay wada hogaamiyaan dalalka Sacuudiga iyo Istaagga Imaaraadka Carabta si jaranka uu u qabsado xarunta dalka Liibiya oo halkaasi ka soo dhiso dowlad kale oo aanay aqoonsanin jamciyadda qolamaha ka dhaxaysa. horaantii toddobaadkan bay ahayd markii dowladda Turkiga ay ku dhawaaqday in ay diyaar u tahay inay taageero u fidiso dowladda Liibiya oo ay aqoonsan tahay qaramada midoobay. ergeyga gaarka ee jamciyadda qolamaha ka dhaxaysa ay u xilsaartay xalinta khilaafka dalka Liibiya Ghassan Salame
ayaa heshiisyada ay la gashay dowladda liibiya ee caalamku aqoonsan yahay waddanka turkiga intani ay keeni karto xiisad kale oo hor leh inay ka abuuranto gudaha dalka liibiya. waddanka liibiya ayaa faraha la galay dagaalo sokeeyo oo dhex maray qabaa'ilada dalkaasi ku wada nool ka gadaal markii uu meesha ka baxay hogaamiyihii muddada dheer ka talinaya waddankaasi liibiya oo mucaamar qadaafi oo galaaftay xukunkiisa kacdoonkii guga carabta kaas oo ka dhacay sanadii 2011 bishii November ee soo dhaftay sanadii 2019 ayaa waxa ay wada saxiixdeen heshiisyo labada dowladood ee liibiya iyo turkiga kaas oo ah in turkiga uu ka saacido dalka liibiya in aan faragelin dibadda uga iman iyo in xoogga ay saari doonto dowladda turkiga ilaalinta xeebaha dalka liibiya oo ay ka jiraan xaalado adag oo dhalinyaro badan oo qaaradda Afrika ka yimid ay had iyo jeer isku dayaan inay ka baxaan dalka liibiya dekedaha ku yaala si ay u tagaan Yurub oo ay nolol fiican ay halkaasi uga helaan. Mareykanka oo u diri doona dalka Ciraaq ciidamo kale kadib markii la gubay safaaradda Mareykanka ee Baghdad. Madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump ayaa ku eedeeyay dowladda Iran inay ka dambeysay gubidii la gubay safaaradda Mareykanka ee magaalada Baghdad ee dalkaasi Ciraaq iyo mudaharaadyadii ka dhacay dalkaasi Ciraaq in ay ka dambeeyeen dowladda Iran. waxa kale oo uu ku eedeeyay Trump Iran inay ka dambeyso mudaharaadyada looga soo horjeedo joogitaanka Ameerikaanka waddanka Ciraaq oo xasilooni ay ugu dambeysay waddankaasi Ciraaq intii uusan Ameerikaanka ku soo duulin dalka Ciraaq oo uusan gumaadin madaxweynihii hore ee waddankaasi Ciraaq ka talin jiray waa Saddam Hussein iyo labadii wiil isagu uu dhalay oo intuba uu Ameerikaanku laayay. maalnimadii Talaadada oo shalay ahayd ayaa dowladda Mareykanka waxa ay sheegtay in dalka Ciraaq ay u diri doonto ciidamo Mareykan kuwaas oo tiradooda ay gaarayso ilaa 750 askari oo Ameerikaan ah si ciidamadaasi ay gacan u siiyaan kuwii horey u sii joogay dalkaasi Ciraaq oo Mareykan. tallaabadani ayaa soo baxday ka gadaal markii dhalinyaro Ciraaqiyiin oo aan wax camal ka haynin dalka Ciraaq gudihiisa oo aad uga caraysan dowladooda waxqabad la'aanta ay sababtay in da'yartaasi ay ku dhaqaaqaan inay gubaan safaaradda Mareykanka ee magaalada Baghdad ee dalkaasi Ciraaq. dadkii Ciraaqiyiinta ayaa mooda haatan in ay u cadaatay faragelinta uu Ameerikaanka ku hayo dalkooda in uu sii xumaynayo xaaladda haatan ka jirta dalka Ciraaq. waxayna dadweynahaasi ay dalbanayaan in laga saaro ciidamada Ameerikaanka waddankooda isagoo ka falcelinaya Ameerikaanka xaaladda ka jirta maanta dalka Ciraaq ayaa madaxweyne Donald Trump waxa uu eedo dusha ka saaray inay mas'uul ka tahay dowladda Iran oo waawaantii laga dhaxwaday labadaasi dowladood ay noqotay dadaal wax natiijo wanaagsan aan ka soo bixin haba yaraatee. hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi oo sheegay in ay soo gabagabeen tijaabooyinka gantaalada nuclear-ka madaxweyne Kim Jong Un ayaa sheegay maanta ay Arbacad tahay in khubarada soo saaridda hubka iyo gantaalada ay dhameeyeen oo ay ku guuleysteen inay soo saaraan waxyaabo kale oo ku saabsan qalabka militariga ee keeni kara dhibaato kale oo hor leh ama xiisad kale oo hor leh. sidaasina waxay sheegtay warbaahinta ku hadasha afka dowladda ee Kuuriyada Waqooyi. siyaasiyiinta Kuuriyada Waqooyi hogaamiyaashooda ayaa sheegay in Mareykanka uu wado dheeldheel oo aanay dhab ka ahayn heshiis waara in la gaaro. sidaasina waxaa sheegay hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong Un isaga oo la jooga ciidamada qalabka sida ee Kuuriyada Waqooyi. Kim waxa kale uu sheegay in waxa Kuuriyada Waqooyi ay doonayso inay sameyso inaanay u sheegaynin Mareykanka oo arrimahooda aanay kala tashanayn dowladda Mareykanka waxay damacsiin inay sameeyaan Kuuriyada Waqooyi. Mr. Kim waxa uu ka qayb galay kulan 4 maalmood ka socday oo uu qabtay ururweynaha shaqaalaha Kuuriyada Waqooyi waxaana kulankaasi uu bilowday maalmihii Sabtida toddobaadkan aynu ku jirno. ilaa haatan ayaa dowladda Mareykanka aanay ka hadlin arrinta Kuuriyada Waqooyi oo ay joogsatay waawaantii u dhexeysay labada dal ee Kuuriyada Waqooyi iyo Mareykanka. Kim waxa uu ballan qaaday in dowladdiisa ay sii wadi doonto horumarinta iyo tijaabooyinka gantaalada kuwooda ridada dheer iyo kuwooda kale ee ridada gaaban. waxaana uu ka muujiyay walaac sida dowladda Mareykanka ay uga gaabisay sidii hore loogu sii wadi lahaa waawaantii labadaasi dal u dhexeysay waa Kuuriyada Waqooyi iyo Mareykanka. daawadada intaas ayaan wararka caalamka
kusoo gabagabaynayno yacquub idin soo saaray iminkana waxaanu ku celinaya asxaabtayda sida tooska ah barnaamijka saaka iyo dunida uga daadahin saxaabta tv-ga magaalada muqdisho aan halkaa kaga gudubnaa alshada abdiraxmaan yacquub iyo xubintiisii akhbaaraadka dibadda iyo wararkii ugu dambeeyay caalamka markana xubintii ciyaaraha waxaa la diyaar ah subaxnimadan waryaheena xabiib axmed cali raxma aad u mahadsan tahay kooxaha ugu waaweyn qaaradda Yurub ayaa durba bilaabay inay suuqa ka dugaameystaan maadaama ay curatay bisha January ee sanadka cusub ee 2020 maadaama dabcan suuqan uu furmay waxaa jira dhowr kooxood oo doonay inay la soo wareegaan ciyaartooy kala duwan Inter Milan ayaa kamid ah kooxaha doonaya dhowr ciyaaryahan oo ka ciyaara horyaalada kala duwan ee Yurub tiimka tababare Antonio Conte ayaa hadda xiiseynaya xidiga Arsenal iyo xulka Gabon Pierre-Emerick Aubameyang xidigan oo daadiisu ay tahay 30 jir ayaa soo kale waxaa baadagoobaysa kooxda Barca oo rabtay inay geliso booska xidiga xulka Uruguay Luis Alberto Suarez kaas oo ay daadu ka daba timid tababaraha Inter Antonio Conte ayaa si weyn u jecel xirfadda ciyaareed ee ciyaaryahan Pierre-Emerick Aubameyang oo diidan inuu kooxda Arsenal la galo qandaraas cusub waxaana heshiiskiisu u dhamaanayaa 30ka bisha June ee sanadka 2021 soo kale Inter ayaa xiiseynaysa xidiga xulka Italy iyo Chelsea ninka yiraahdo Emerson Palmieri kaas oo 25 jir ah waxayna ku raadinaysaa adduun ka badan 25 milyan Antonio Conte ayaa doonayay inuu Inter u qaado horyaalka Italian Serie A oo aysan ku guuleysan tan iyo sanadkii 2010 waxaana Inter hadda dhanka dhibcaha ay la siman tahay kooxda Juventus oo difaacanaysa horyaalka Italy ee loo yaqaano Italian Serie A dhinaca kale kooxaha Arsenal Man City iyo Chelsea ayaa xiiseynaya daafaca kooxda Leicester City iyo xulka England Ben Chilwell kaas oo daadiisa ay tahay 23 jir tababaraha Chelsea Lampard ayaa la siiyay adduun lacageed dhan 150 milyan wuxuuna baadagoobayaa dhowr ciyaaryahan kuwaas oo ay kamid yihiin xidiga weeraryahanka kooxda Olympique Lyon iyo xulka France Moussa Dembele xidiga Crystal Palace iyo xulka Ivorian Wilfried Zaha laakiin tababare Lampard ayaa la sheegay in ciyaartooyda uu raadinayo uu ka yahay daafaca dhanka bidix ee lambartareega ka ciyaara ee kooxda Leicester City Ben Chilwell laakiin waxa isku haysta dhowr kooxood oo ay kamid yihiin Arsenal iyo Manchester City Juventus maamulkeeda waxay doonayaan inay qandaraas cusub la galaan xidigooda xulka Portugal Cristiano Ronaldo Calcio Mercato ayaa lagu daabacay in maamulka Juve ee Cristiano u soo bandhigayaan qandaraas cusub oo ku ekaan doona 30ka bisha June ee sanadka 2023 iyadoo sanadkiiba uu qaadan doono adduun ka badan 30 milyan oo gani Cristiano ayaa Juventus ku soo biiray sanadkii 2018 wuxuuna tan xilligaas guud ahaan garoonka u soo galay 64 kulan wuxuuna u ansixiyay 40 gool xidigan ayaa taageero badan ku yeeshay garoonka Juve waxaana uu xilligii la soo dhaafay kooxdaas u suurageliyay inay hantiyaan horyaalka dalka Talyaaniga ee Serie A tababaraha cusub ee West Ham David Moyes waxaa loo balan qaaday in la siin doono abaalmarin lacageed dhan 2 milyan oo gani haddii West Ham uu ka badbaadiyay inay dib ugu laabato horyaalka heerka labaad ee dalka England West Ham ayaa tababaraheeda cusub ee David Moyes wuxuu shaqadan kala wareegay tababare Manuel Pellegrini oo dhawaan la eriyay waxaana kulankiisa ugu horeeya uu caawa la ciyaari doonaa kooxda AFC Bournemouth maamulka West Ham ayaana tababare David Moyes u sheegay in haddii kooxdan uu ka badbaadiyo inay dib u laabato maadaama ay hadda fadhisa kaalinta 17aad in la siin doono abaalmarin lacageed oo dhan 2 milyan dhinaca kale ciyaaryahan Eden Michel Hazard ayaa dib ugu soo laabtay tababarka kooxdiisa Real kadib markii uu ka soo kabtay dhaawac uu garoomada in muddo uga maqnaa xidiga xulka Belgium ayaa lagu arkay xirada tababarka ee kooxda Los Blancos inkastoo ciyaartooyda badankood hadda ay ku maqan yihiin fasax maadaama lagu jiro damaashaadka sanadka cusub ee 2020 Eden Hazard ayaa garoomada ka maqnaa ku dhawaad hal bil maadaama uu dhanka jiribka ka dhaawacmay koon ciyaareedkii xiisaha badnaa ee koobka Yurub ee kooxdiisu ay la ciyaartay kooxda Paris Saint-Germain wuxuu saxaafadda u sheegay in hadda uu diyaar u yahay
inuu safto kadib hal bil uu garoomada ka maqnaa. xidiga xulka Belgium ayaa si aan fiicnayn ku bilowday nolosha magaalada Madrid, laakiin taageerayaasha kooxda Los Blancos ayaa aaminsan in Eden uu wax badan ku soo kordhin karo kooxda ku ciyaarta Santiago Bernabeu. ugu dambeynna galabta iyo caawa ayaa la ciyaari doonaa ciyaaro xiiso badan oo qayb ka ah kulmada loo yaqaano Boxing Day ee laga ciyaaro horyaalka England ee English Premier League. 9 saac bar ciyaarta ugu soo horeysa Chelsea oo dhawaan garaacday Arsenal ayaa booqanaysa garoonka Brighton, halka Aston Villa ee la ciyaari doonto kooxda Burnley. Newcastle ayaa St James Park kula balansan 12-ka kooxda Leicester City, halka Tottenham iyo tababarahooda Jose Mourinho 12-ka maqribka iyana ay booqanayaan garoonka Southampton. Man City oo xaaladda ay ku xun tahay ayaa caawa 2 saac bar garoonka Etihad iyana ku qaabili doona kooxda Everton, waana kulan xiiso badan. West Ham ayaa iyana isla xilligaas la balansan oo garoonkeeda Upton Park kula ciyaari doonto kooxda AFC Bournemouth, halka ciyaarta ugu adagna caawa 5 saac fiidnimo Arsenal garoonkeeda Fly Emirates ay kula ciyaari doonto kooxda caanka ah ee Man U. labada kooxood waa laba kooxood oo aad u xifaaltama. Arsenal ayana dhawaan guul daro kala kulantay Chelsea kadib markii ciyaarta oo gabagaba laga dhaliyay 2 gool. tababaraha Arsenal Mikel Arteta ayaa sheegay in kooxdiisu ay waajib ku tahay in kulankan ay guuleystaan. tiimka tababare Ole Gunnar Solskjaer waxaa ka maqan 2 ciyaaryahan oo muhiim ah oo khadka dhexe ka ciyaara, waxayna kala yihiin Scott McTominay kaas oo dhowr isbuuc garoomada ka maqnaan doona. sidoo kale kulankan waxaa seegi doona xidiga jaasada badan ee xulka Faransa Paulo Lavella Pogba. ayaan ku eliyo raxmo iyo qaybaha ka haray barnaamijka. barnaamijkeeni saaka iyo dunida waa inaga inta waad ku mahadsantihiin daawashada barnaamijkeena.